Badhasaabka Gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro galabta KaHadlay ee madal lagu soo dhaweynayay wafdi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka iyo gudoomiyaha guud ee bangiga Somaliland ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalkii subaxii hore ciidamada uu hogaaminayo Korneel Caare iyo ciidamada qaranka Somaliland ku dhexmaray buuralayda waqooyi ee gobolka Sanaag gaar ahaan dowga tabca warbixin ka siiyay saaka waxa dhacay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa gaaray ciidan uu watay ninkii loolan jiray Caare oo halka ku soo dhawaaday goob leedayn wadada laga galo karinka ciidanku nasiib wanaag iyadoo aan waxba ku dhiman laba gaar ninkii laga soo qabtay isaga iyo saddex gaarna waxay u yaaceen buurta gudaheeda si nabadgelyo odayaashii looga daba diray mar walba xagga nabadgelyada ka maraynaa qofna inaga ma go'o hawshaas si wanaagsan buu socotaa waana soo gabagoobaysaa insha Allah wax khasaara labada gaadhay ninka laga soo qabto faa'iido mooyaane wax khasaaro dhacay inaan dhaawac jiro finiin xabado ku dhacay dhagax ay galgaleen wax dhibaato kale kama dhicin meesha ugu dambeyntiina Badhasaab Timbaro la weydiiyay in wax khasaaro ay soo gaadheen ciidamada uu hogaamiyo Korneel Caare ayaa yiri waxba kama jiraan alla wax ka dhintay wax ka dhacay midna ma ogin Jaabir Siciid Ducaale Jaabir Bulshaawi Sahan TV Erigavo